أكبر. الله نحرستي جنة فردوسها كورابيه waxa askari loogu sameeyay xabaalaha Baqiic ee waqooyiga caasimadda Hargeysa 9 askari oo ka tirsan ciidanka bilayska Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku geeriyooday dagaal dhexmaray ciidamada ammaanka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jabhad hubaysan oo gashay buurta gacan libaax ee gobolka Saaxil waxaana jinaasada marxuumiintan ka qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ku xigeenka madaxweynaha shirgudoonka golayaasha sharci dejinta ee guurtada iyo wakiilada xubno kamid ah golaha wasiirada taliyaasha ciidamada qalabka sida xildhibaano culimo awdiin siyaasiyiin aqoonyahan ganacsato iyo dadweyne tiro badan kuwaas oo dhamaantood muujiyay dareenkooda qeyro iyo sida ay uga xun yihiin in gacan ka hadal lagu beegsado ciidamada bilayska ee Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka tacsiday geerida ku timi ciidamadan geeriyooday isla markaana sheegay in qaranka ay waajib ku tahay in sharciga la hor keeno cid kasta oo gacan ka hadalka qayb ka ahayd ana ku hadlay magaca qaranka waxaan ka tacsiinaa qaranka guud ahaan dilka loo geystay ciidamada qaranka iyo geerida timid waxaan ka tacsiinaynaa qoysaskoodii iyo ehelkoodii waa la qaybsanaynaa qoysaskii iyo caruurtoodii xanuunka iyo dhibaatada iyo geerida qoyskooda ku timid qarankuna uu la qaybsanaya qaranka Soomaaliland 3 qodob baa la gudboon oo kali ah marka hore ciidii shirqoolka iyo dilka geysatay mid abaabulay mid caawiyay iyo mid gacanta geystayba in la hor keeno sharciga oo sharciga sida diinta islaamka uga shahay la mariyo waa waajib qaranka saaran dad iyo dawladba xukuumaduna ay garwadan ka noqonayso hay'adaha sharciga waxa la farayaa in ay hawsha soo dhameystiraan raadkeeda